salaamu ullaahi calaykum idil ahaantiin baa ikhtiyaarta hawada nagala xidhiidha imayl kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeenu xiiso badan aan ku qaadaa dhigi doonaa hadduu uu rabbi idmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar uu waraysi siinayay wargeyska caanka ee the guardian waxa uu sheegay inuu ka badbaaday shirqool ay soo maleegeen kooxda al-shabaab oo la doonayay in looga takhaluso madaxweynaha waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doonaa taliyaha hay-adda nise mahad salaad oo isugu yeedhay guud ahaanba saraakiisha hay-adda nise ee ku sugan guud ahaanba dalka soomaaliya xilli kooxda al-shabaab lagu hayo dagaalo xoogan waxaana dowladdu dhanka kale ay ugu baaqday kooxda al-shabaab in ay ku dileen oo ay ku dhammaystireen ilaa iyo 100 dagaalamo oo ku dhaawacmay dagaalkii aadan yabaal ka dhacay dhawaankaasi oo ay dhammaystireen ambaba ay nafta ka qaadeen kooxda al-shabaab tira kor u dhaafaysa 100 ruux oo ka dhaawacantay waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aad kaga bogan doontaan wariye isboortiga oo u dhashay dalka Mareykanka oo si live ah war u tabinayay ayaa ku geeriyooday dalkaasi Qatar waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doonaa mooshin aan la garanaynin waxa laga keenay ayaa la sheegayaa inuu ka baaqday ay baajiyeen golaha shacabka taasi oo la sheegayo in aadan midoobe oo ganafka ku dhuftay qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaada dhigi doonaa waxaana barnaamijkeena falanqeyn doonaa saaxiibkay gooni fargodo waa maasan tahay haddaan ka hormarno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay inuu ka badbaaday isku day dil kadib markii la soo weeraray hotel Villa Rice oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya muddo wax yar hadda laga joogo wuxuu yiri madaxweynaha habeenkii dhow waxaan dhageysanayay risaas iyo madaafiic iyo qaraxyo wuxuuna dhahay waa markii marar fara badan ayaa la soo weeraray oo la isku dayay inaan isku day dil aan ka badbaaday had ka hor waa xasuusanaa waqtigii madaxweynaha uu ahaa oo hadda aan ahayn oo farmaajo ka hor ah in madaxtooyada loo galay madaxweynaha Soomaaliya asagii wasiiro ayuu ku dukanaya masaajid ku dhaxyaala madaxtooyada Soomaaliya marka madaxweynaha wuxuu leeyahay bataatanba mar iyo laba ma aha inta aan aniga isku day dil ka badbaaday wargeyska The Guardian oo u maleynaya inuu kasoo baxo dalka Ingiriiska ayuu wareysi siiyay asagoo ku sugan dalka Sacuudiga wuxuuna leeyahay aniga nafsadeeda halis ayaa la geliyay habeenkii oo dhan wuxuu yiri ma seexanin waxaan maqlay oo dhahay risaasta iyo meesha ka dhacay iyo qaraxyada wuxuuna dhahay markii ugu horeysana ma aha dhibaato far badan ayaan dalkan ka jiro shabaabkuna waxay isku dayeen oo dhan nolosheeda mar iyo laba iyo saddex iyo afar ka badan inay dilaan marka wuxuu ka sheekay madaxweynaha dhibaatada ee Soomaaliya ay gaarsiiyeen shabaabka maadaama muddo far badan ay madaxda Soomaaliya isku dayaan inay dilaan qaraxyeen u geystaan madaxtooyada Soomaaliya madaafiic ku soo garaacaan marar far badan qaraxyada madaxtooyada irideeda iyo meelaha u dhow ay ka sameystaan marka wuxuu yiri dhibaato aad u far badan ayaa halkaas wuxuu yiri nolosheeda ay ku gashay waxaana hadda dareemayaa yiri in shabaabkii la sii gabagabeynayo dhibaato far badan oo ba'an loo geysanayo ayaga naftoodana waxay galaafan karaan inay galaaftaan isku dayaan laakiin anigu wuxuu yiri waa nabad qabaa in shacabka Soomaaliyeed ayaan u adeegayaa si nabad fargodow gooniyow dhanka kale waxaan iyadana qodobadeena ka mid ahaa in taliyaha hay-adda nisa mahad salaad uu u yeedhay guud ahaanba taliyaasha ciidamada hay-adda nisa ee ku kala sugan gobolada dalka Soomaaliya xilli gobolka Gadow lagu dilay taliye sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee dalkaasi Soomaaliya waxaa kaloo iyadana halkaasi ka dhacay deegaanadaasi shaqaaqooyin ayaa ka dhacay haddaba arrintaasi maxaa ka jira والله horta gobolka Gado asaga dhanba qalalaasa ayuu galay kadib markii taliyihii nisa ee gobolka Gado ninka lagu magacaabay Bakaal Kooka Allah u naxariistay lagu dilay qarax lagu xiray gaarigiisa warar fara badan oo iskhilaafsan ay ka soo baxayaan qaabka loo dilay waxa la leeyahay taliyaha waxay ishayeen ninka lagu magacaabo Canjeex oo ah gudoomiyaha gobolka Gado had ka horna doolow ay isku qabsadeen marka isqabsigaas faraha badan ayaa shaki galiyay waxa marka loo yeeray taliyaha Mahad Maxamed Salaad wuxuu u yeeray dhammaan hay-adaha nisa ee ku shaqada leh gobolka Gado inay yimaadaan Muqdisho kadibna halkaas baaritaan iyo su'aalo lagu weydiiyo markaas kadibna la ogaado oo lagu sameeyo baaritaan rasmi ah sababta Bakaal Kooka loo dilay iyo sida gaarigiisa qarax loogu xiray marka waxa shaki aad u weyn laga qabaa ninka lagu magacaabo Canjeex oo ay isku qabsadeen kadib markii lacaga canshuur ah oo laga qaado doolow ay isku qabsadeen iyo baawarti gaadiidka laga qaado control meelahaas yaala ay isku qabsadeen ayaa waxa la leeyahay taliye Mahad Maxamed Salaad ay soo fargeliyay wuxuuna yiraahday Bakaal Kooka xir akoonada dhan macnaha lacagaha lagu shubo akoonadiina waa la xiray marka waxay aad isugu dhacsanaayeen ninkaas gudoomiyaha gobolka Gado ku magacaaban Canjeex loo yaqaano marka isqabqabsigaas faraha badan macnaha shaki galiyay waxaana hadda madaxweyne Xasan Maxamuud uu amray in baaritaan dhab lagu sameeyo loona yeero dhammaan hay-adaha halkaas ku shaqada leh ee amniga dhamaantoodna Muqdisho looga yeeray waxayna gaari doonaan maanta ama bari waqtiga noqotaba su'aalo fara badan oo lagu weydiin doonaa
waxaa kaloo jirta iyadana Fargodow in lagu magacaabo Rambo oo degmada Ceelwaq ka gadooday ciidanka Axmed Madoobe ay ishayeen muddo fara badan iska qabsi halkaas ka jiray awgeed maalin shalay ahayd ayuuna wuxuu sameeyay gadood wuxuuna soo watay dhalinyaro kale oo fara badan ilaa 10 gaarayo sida aan wararkeena hore ku baahinay markay Axmed Madoobe ciidankiisa qabteen ciidamadii mushaar loo qaybinayo weeraray ayagana waxbuu ka dilay asagana iyo rag kalena waa la dilay dhowr ninna way baxsadeen oo hadda waxa leeyahay dhamaantood waxay u dhasheen gobolka Gado waxayna ka soo horjeedaan maamulka Axmed Madoobe oo isku dhac fara badan ay ka gaareen ninkaas marka taliye Rambo oo lagu magacaabo taliyaha sarsare ayuu kamid ahaa ciidanka Ceelwaq joogay asagana waa la dilay dhowr kalena waa la dilay dhowr kale oo ciidamadiis kamid ah way baxsadeen waxay leeyihiin waa ku raad joognaa marka gobolka Gado qalalaasadaas faraha badan iyo mugdigaas ayaa soo galay maalmihii la soo dhaafay waan ogaan doonaa wixii ku soo kordhay Fargodow gooniyo waxaa la isweydiinayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jira hoteelo fara badan oo la qarxiyay waxaa jira saraakiil fara badan oo la laayay kii hadda maxaan ku dhahaa Villa Rosa kaba soo qaad kan ugu dambeeyay kuwii ka horeeyay dhammaan dowladdu waxay sheegtay in baaritaano la sameyn doono cidii ka dambeysayna la horkeeni doono laakiin wax baaritaan lagu sameeyay waxa toona la keenay ma ay jirto arrintan marka soo ceeb kuma aha dowladda horta madaxweynaha Soomaaliya marka wareysiga bixinayo oo wargeyska The Guardian siinay wuxuu sheegay in saraakiil iyo ciidan fara badan loo maxkamadeynayo in qarxi Villa Rosa taas oo isqabqabsi fara badan ka jiray qaabka uu dhacdana xataa shaki macna dowladda dhexdeeda ka abuurtay wuxuu dhahay waxaa xiran rag kamid ah mulkiilayaashii hoteelka waxaa kaloo xiran saraakiisha kontaroolada joogay iyo ciidamada kontaroolada jooga dhamaantood waan run xabsiga ay ku jiraan baaritaan dheer ayaana lagu hayaa waxaana loo maleynayaa maxkamad in la soo saaro maalmaha soo socdo taas waa sax baaritaan ayaana ku socdo in Villa Rosa wuxuu yiri qaraxas ma la saga hari doono meel ay gaartaba hadda meesha dilka bakaalka oo kama dhex dheero gobolka Gada dhexdiisa inkasta shabaabku ayagu ay sheegteen inay bakaalka ka dileen muddo fara badan ay raadinayeen haddana in loo fududeeyo u badan tahay marka waxaa la raadinaa dadka u fududeeyay ninkaas sida macnaha ay ku dilaan shabaabkina wax dilayana waxna qarxinay la isma weydiinay laakiin yaa u soo fududeeyay gaarigiisa xagee lagu xiray xagoo gaariga ku xadhasnaa waxyaabahaas in la isweydiiyo way marka baaritaankan hadda gobolka Gado waxa ku bilaaban doona hay'adda NISA dhexdeeda ayaa horta loo yeeray dhamaantoodna waa in baaritaan iyo su'aalo kala duwan la weydiiyaa markaas kadib la ogaan karaa gaariga meesha uu tagay iyo inta meel soo maray waxa kale meesha ku dhaawacmay Cabdullaahi Kiniin oo ahaan jiray taliyihii balad xaawo ee NISA marna ahaa taliyihii sheegeen maxaa la yiraahdaa gobolka Doolo meesha lagu magacaabo asna ahaa oo Cabdullaahi Kiniin la yiraahdo asagana dhaawacmay magaalada Muqdisho ayaana lagu daaweynayaa asna naftiisa hadoo soo kabsado waxa laga yaabaa in su'aalo fara badan la weydiin doono oo sheego meelihii ay mareen iyo gaariga inta meel lagu xareeyay iyo waxyaabahaas naftigeeda dabagal ayaa lagu sameyn doonaa marka hawsha ma sahlana Fargodow gooniyow haddaan ugu daro dadka dhageystayaasha waxaa jira oo warar ka soo baxaya qaabka loo qarxiyay ninkani in afar baabuur uu watay afarta baabuur uu watayna mid kamid ah inuu ahaa baabuurta ayna xabadu karin marka sida inta badan caadada aba markii safar dheer la galayo inta badan baabuurta geersh baa la geeyaa waa lagu soo dayactiraa marka saddex baabuur oo kamid ah kiisi mooyaan ayaa waxa la geeyay geersh baa la geeyay waxaana la tilmaamayaa baabuurkan waliba ma garanaysa hadda lagu qarxiyay inuu ugu dambeeyay oo muddo dheer uu geerashka ku jiray oo saacada dheer uu ku jiray kadibna lagu soo xiray oo waliba aagu fariisan lahaa loogu soo xiray waxa kaloo idan la sheegaya darawalkii baabuurkan ku qoraa oo hadda ninka ma garanaysa laga shakisan yahay calaamadu ay saaran tahay inuu asaga laftiisa u yiri maanta waan xanuunsanahay oo idin raaci karo sida kaga hadhay oo la tilmaamayo laftiisa in la adeegsaday waxa kaloo iyadana meesha ka soo baxaya in baabuurkiisi xabadu ayna karin uu ka dagay oo baabuurkan uu raacay marka bal kulay xogaha ka soo kordhaya waan dadka waan la wadaagi doonaa haduu Rabbi idmo isha ayaana ku hayn doonaa haduu Rabbi idmo waad mahadsantiin daawadayaal halka aad nagala socotaanina waa warbaahinta oo gooni iyo waliba Hudhud Media oo maalin walba aad ka dhageysataan wararkii ugu dambeeyay haduu Rabbi idmo gooni haddaan ku soo noqdo dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay iyadu wax allaar wixii dhalinyaro ka dhaawacma ay dib u dhameystiraan arrintaasi maxaad warkaysaa horta Fargodow dadkaasi dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka hadashay in mar walba ay dhacdo duqeyn fara badan shabaabkan loo geysto marka wuxuu yiri duqeynta way dhacdaa wasaaradda warfaafinta ayaana warkaas soo gudbisay ninka lagu magacaabo Al-Cadaala wuxuu yiri duqeynta faraha badan way dhacdaa dadka shabaabkan waa la duqeeyay shabeelaha dhexna aad baa lagu duqeeyay waxa ka dhaawacmay dad ka badan 100 shabaab ayaa dhaawacmay 100 koodiina shabaab ayaa watay oo dhaawacyadooda intay qaadeen ay meedad u bedeleen 100kiiba waa dileen marka wuxuu yiri dadkaas ay aruurinayaan oo dhaawacyada oo shabaabka inta dagaal ku soo qasbeen qaarkoodna ay maran habaabiyeen maskaxda ka rogeen haddana markii ay soo dhaawacmaan
inuu haddana asagii dhammaystirayo. Wuxuu yidhi waxaa nolol ma aha, boqolkaas qofood waa boqol qofood oo Soomaali ah, waxaana badbaadi lahaay dhakhaatiirta Soomaaliyeed, waxayna noloshooda dib ugu sii wadan lahaayeen Soomaaliya ayagoo laga tirtiri lahaa waxyaabaha qaldan ee laga dhaadhiciyey. Marka wuxuu yidhi ha kala daayaano leysmada ay leynayaan dadka ayaga u shaqeeya oo ay xoogga kusoo wateen iyo kuwa ay micnaha maskaxda ka bedeleen ay ka dhaadhiciyeen inay janno galayaan. Marka boqolkaas qofood shabeellaha dhexe ayay uga dhaawacmeen, boqolkiina shabaab ayaa dishay, qaarkoodna waxaa lagu arkay deegaanada aadan yabaal. Waxaa kaloo sheegay nin isi soo dhiibay oo shabaabka kasoo goosto dhalinyaro ah, wuxuu sheegay in 3 jeer tiro ka badan in loo soo diray inuu isku qarxiyo ninka lagu magacaabo Cali Jeete Cusmaan oo ah ninka inta badan gobolka Hiiraan ka xoreeyay shabaabka. Wuxuu yiri 3 jeer ayaa la soo diray ninka la yiraahdo Cali Jeete isku qarxiyo, 3diibana waa iga fashilantay dhax. Marka wuxuu yiri hadda marka afraad intaan la soo dirin ayaa iska soo dhuuntay yiri nolosheeda anigana u badbaadiyo, anigana maxaa la Cali Jeete noloshiisana ay sabaxar u galin. Marka waxyaabo aan garanayn iyo meel aan garanayn iyo meel aan macnaha aan tagi karin ayaa la dilo dhax. Marka wuxuu yiri gal aad soco isqarxi sameyn janna gale boqol qof oo qoyska jannada galeys waxyaabo fara badan ay sheegan oo dhan. Marka dhibaato fara badan halkaas ka jirto, shabaabkuna waxa way dhaxdooda inta iska dhameystirayaan inta dawladda ka dilayso waxa badan inta ayagu dhameystirayaan. Marka konton dhaawacanto konton ka way dhameystirayaan. Marka shabaabku waxa way marka aragtid boqol qofood shabaab haday ka hor imaato, nin gacan go'an kuma jiro, nin far go'an kuma jirto, nin dhag go'an kuma jiro, nin lug go'an kuma jiro, nin dhaawac hootana bari wad kuma jiro. Waa sharcigooda ma ahaba. Waxay ugu tala galeen inaan laga niyo jabin shabaabka in lagu biiro. Marka waxay sameynayaan nin walba dhaawacmo ama garab ka go'o ama dhag ka go'do ama xabad meel ka gasho inay dhameystiraanba. Marka inta soo harto waa fresh meel ka go'ayeen ma lahan, waa sidoodii ay ku socdaan. Marka inta badan ayaga laayo shabaabka, ayaga laay ragga u dagaalamo oo ka dhaawacmo, saraakiisha bis ay isku dadayaan inay badbaadiyaan, sargaalka ay fahmi waayeen oo dhameystiraan. Haddii Cali Dheer maanta oo dhinac ka go'o oo la yiraahdo gacana ka go'do Cali Dheer ma daweynayaan, waa dilayaan. Sharciga u yaala saas marka shabaab dawladda Soomaaliya waxay ugu baaqday inay ka dayso leesmada faraha badan ee dadka masaakiinta ay u geysanayaan fargodo. daawadayaal barnaamijkeena intayna soo gabagabaynin waxaan rabaa hal iyo laba inuu ku soo goobo mooshin la sheegay in laga dhaxwaday golaha shacabka ee dalkaasi Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. horta mooshinkaas maanta ayuu baaqday oo wararka mar dhow ayuu soo gaaray waxaana u baaqday korum la'aan 78 xildhibaan ayaa baarlamaanka Hargeysa Villa Soomaaliya ku dhex yaalo maanta iskugu timid waxaana shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Abshiro wuxuuna yiri kulanka wuxuu u baaqday korum la'aan maadaama 78 qofood bis ay imaaday baarlamaanka waxaa loo ogol yahay in 138 xildhibaan ay soo fariistaan markaas oo korum ku buuxa. Marka waxaa la mooshin ayaa laga waday, mooshinka qofka laga waday iyo sida uu ahaa lama ogeyn, waxyaabo badan oo mashaariicda dalka ahna waa laga hadli rabay, mooshinkaasna waa la qarinayay kolba waa ogaan doonaa maalmaha soo socdo in wax uu noqdo. ugu dambeynna daawadayaal dalkaasi Qatar ayaa la tilmaamayaa in wariye sport oo warka tabinaya isagoo ku jira si live ah la sheegay inay naftu ka baxday. Haddaba arrintan ayaa waxaan ugu dambeyn oo barnaamijkeena aan ku soo gabagabayn doono saaxiibkay ninka lagu magacaabo Gooni. Fargodo ninkaasi wuxuu tibinayay ciyaartii xalay ee Argentina iyo ay ku dhaxmartay dalka Netherlands wuxuuna daawanaya ciyaartii live ugu tibinaya dalka Qatar waxaana lagu magacaabaa Wahal wuxuu u dhashay dalka Mareykanka waana 48 sano jir asagoo ciyaartii live u tibinaya ayuu istaaga ka dhacay fadhigii meesha uu ka soo tibinayo ka dhacay uu markuu kursiga la gudoomay dadka wariyaasha waxa la tibinaya ayaa waxay u fidiyeen gargaar ninkii oo meed ayaa la arkay labada isbuuc la soo dhaafana Twitterkiisa wuxuu ku qoray inuu xanuun dareemay hargab aad u daran oo dareemayay marka dadku waxay leeyihiin ninka marka hurdada oo ku yaraatay maadaama xanuun uu dareemay iyo waxyaabo kale oo fara badan isugu darsamay marka ciyaarta waqtiga dheeriga ayay socotay Argentina iyo Holland marka halkaas oo si toos ah warka ugu soo tibinayay Tirabe ayaan halkaas ugu imaaday woona geeriyooday 48 sano ayuuna jiraa ninkaas wariyaha ah dalka Mareykanka ayuu u dhashay wuxuuna ka yimaaday magaalada New York halkaas ayay wax ka dhaceen si live asagoo ciyaarta u tibinayeen waa markii ugu horeysay ee saas ay dhacdo hadda World Cup-ka waana intii hadda World Cup-ka socdo gabagaba hadda uu ku sii dhaw yahay waxa kale hadda sheegayaan World Cup-ka hadda uu sii dhawaanaya wax yar ayaa ka soo haray waxaana maanta ciyaari doono Ingiriiska iyo Faransiiska waxa kale oo ayagana ciyaari doono Morocco iyo Portugal Fargodo. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Gooni oo inta badan ka faalooda arrimaha koonfurta dalkaasi Soomaaliya. daawadayaal barnaamijkan inta ayaan ku soo gabagabeynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid lamid waxaan kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.